dadkaanaan nahay biyo ma hayno ceel dheer biyo noogu dhow magaalo waayo meeshu sida ogeed xoolahaanu ma gaaraan anagu ma gaarno waa ina biyo helnaa ninkii wuxuu yiri waa yahay jinaas ugu tukada oo la tooganaya asagoo nool jinaas ku tukaday wallahi aniga niyahow gurceel waxay heerar bay soo martay inta aniga aan ka warqabo aniga horta 1967 aabahay baa soo qaaday wuxuu geeyay joohar buu geeyay aniga aan geeraa joohar baa la geeyay joohar baan dugsi iyo quraan iyo adeerkay deganaa marka waa marnay markaas gurceel waan marnay mana lahayn ceel meel yar ay ahayd xusuus dhexaana uma lihi markaas waxaan u gartaa maqaayada inay lahayd wax laga cuno biyahana ceel dheer looga keeni jiray ceel dheer oo 30 kiiloomitir hadda u jira Dhuusamareeb ayada u dhaxeeya ayaa looga keeni jiray kadib waxaan maqlay gacanku markuu dhashay 73 ayaa motorka u horeeyay laga qoday motorkaas laga qoday waxa uu socday Boosaaso oo loo diray in meelahaas gobolka bari meel uu socday ay ka war heleen matabaan inuu hoyanayo ninkaasu nin waxa waday leeyahay aadan cadaacite oo Ahmed cadaacite walaalkiisu matabaan deganaa oo meeshaan degan ka soo jeeda laakiin reer xamar ah oo dadkan dhulkaan iyo midna aan waliga imaan oo hadda biyaha ah ee Mareykanka wax ku soo bartay soondeysta ninkaas ayaa ka war helay Ahmed habeenkii gurgiisa oo ku hoyday walaalkiisa oo la dhashay baabuurtii iyo wixii uu rarayeen wiishkii motorkii waa sidaa iyo shaqaalihiisii waa wataa marka nimanka gurceel baa xajiyo timid saasay sheegtay waxa la yidhi birina dhaafi maaya motorka ina cadaacay wado already annaga xaq u leh oo ina loo mudaa motorkaas war hadda motorka aniga waxa way amaraan ku socdaa gacaankuna waa carcar amaraan ku socdaa aniga waxaan u wadaa gobolka bari halkaas aan u socdaa uma soo bixin gurceel hal la geeyo lama dhihin waan dawaaside waa la isku dilayaa 100 kunana la isku dilaa waagaas oo qofka lagu tooganaya hadii uu ku lunto la iska dhaaf motor iyo shandadhan iyo shaqaan oo meel loo diray meeshii meel aan ahayn waxay ka doontaa saddexdii buu waay iyo oo mannahay anaga waa baaba'sanahay dadkaanaan nahay biyo ma hayno ceel dheer biyo noogu dhow magaalo waayo meeshu sida ogeed xoolahaanu ma gaaraan anagu ma gaarno waa ina biyo helnaa ninkii wuxuu yiri waa yahay jinaas ugu tukada oo la tooganaya asagoo nool jinaas ku tukaday markaas waxay dhaheen insha Allah lagu taaba maayo dhago furaystay telefoonka gacanta lagu qaadanaa male telefoonka gacanta lagu qaadanayo male internet male taar waay oo taarka biliiska la tagaya markaas la hadlaya arrimaha gudaha markii oo gobolka oo kale arrimaha gudaha waxay ku hadlaan ayaga yaqaan laakiin tuulooyinka biliiska jooga oo waxa taar la aada taar biliis iyo waxa la adeegsan jiray waayo biliisku arrimaha gudaha u shaqeeya dhaga ninkii la qabtay waxa la yiri aadan baa la dhihi jiray hal wiil buu dhalay aan la yaabarahay maalin xamar buu ku dhintay hadda mar dhow dhintay oo 2000 iyo something ah waxaan ku dugnay isbitaalka xooga agtiisa meel ah roob ma da'ayn mar alla markii meedkiisa la soo qaado laga soo baxshay gurigii roob baa noo yimid dabayl oo socotay roob baa noo yimid intii la duugayay aadan cadaacite roob baa da'ay marka nin biyo ka shaqeeyo adduunka biyo geeyo oo nin iska edab badan oo hal wiil ilmo ka dhala mooto ku socon jiro dhinacaan oo marka waxa ay sheegtay abwan ceelkii waa la qoday markii la qoday wasaaradda waxaa joogay nin la yiraahdo ina Suudi Xasan Yare oo salaad gooy adeer oo ayaa wuxuu ahaa wakaaladda batroolka ama wakaaladda biyaha wasaaradda biyaha iyo batroolka oo saarnay ayuu ka ahaa xogay dhijina wagaas wasiir lama dhijin ninkii warkii gaaray aadan waxa la yiri waa lagu dilayaa marka hadii arinta sameysay iyo aniga walaal dhacay dad shacab ah waduu meel laga laabtay waxba uu qarashkii baxay iyo wixii ba 10 kun la geeyay oo xilligaas lacag Soomaaliya lacag adag ah ayaa lagu baxshay motor kala la diray aadan waxa la yiri bartaada joog motor lagu keenaya
taarka biliisku ka hadlaye waxaad aadaysaa meesha dadkii shacabka hayay motorka qaatay ayaa dhahay maya dawladda soo hadasho taarka toban ka hadashay waxa la yidhi waxa lagu keenayaa motor baa soo socda hadda ku imaanaya gudub meeshii lagu diray aad gobolka bari oo soo qoda kana waa qoday